Filimka ayaa ku salaysan duni khiyaali ah, halkaas oo ay dadku dareere cas cabaan halkii ay biyo caadi ah cabi lahaayeen. Waa qasab in qof walba uu cabo dareerahan. Qofkii diidana inuu cabo waa la qabtaa oo xarig ayuu la kulmaa. Dareerahan ama biyahan waa bilaash oo dadka oo dhanna waa ay ku raaxaystaan cabiddiisa. Xaqiiqdii biyahan ayaa adduunka ka dhigay mid wanaagsan oo aysan ka jirin wax rabshad, murugo iyo dambiyo ah. Qof walbana waa uu iska faraxsan yahay oo mar kasta waa uu dhoola caddeeyaa. Bilowga filimka, nin lagu magacaabo Locke ayaa la arkayay isagoo dhex socda tunnel dhexdiisa. Wuxuu u muuqdaa mid cabsanaya oo dadka cararaya. Si lama filaan ah ayaa wuxuu kor imaaday miis ay koobab badan saarnaayeen, kuwaas oo ay ku jireen biyihii casaa ama guduudna. Locke ayaa qabsaday mid ka mid ah koobabkii si uu u cabo, laakiin markaas si la yaab leh haweeney aan la garanayn meel ay ka soo baxday ayaa ku qaylinaysay. Taasna waxay keentay in Locke uu koobka tuuro oo uu burburo. Muuqaalka qaybtiisa xiga, Locke ayaa hurdada ka soo toosay isagoo dhididaya. Waxaad mooddaa in wax walba ay kaliya ahaayeen qarow. Jikada ayuu aaday oo wuxuu salaamay xaaskiisa Kim, taasoo xaamilo ahayd. Wax yar kadib, Kim ayaa soo buuxisay 2 koob oo biyihii casaa camal ah, waxayna saartay miiska cuntada halkaas oo uu ninkeeda ku sugayay. Kadib lamaanahan ayaa si farxad ay ku dheehan tahay u wada cabay biyihii casaa. Markay quraacdii dhammaysteen, Locke ayaa diyaar garoobay oo shaqadiisa aaday. Jaranjarada hoose intuu sii socday ayaa wuxuu arkay inantii yareed ee deriskooda oo si farxad leh u salaamaysa. Wax yar kadib wuxuu la kulmay tubiistaha tubada u sameeya, kaas oo ahay nin farxaan ah. Labadooduba cabaar ayay sheekaysteen oo waa ay kala tageen. Kadib inta Locke uu xafiiska shaqadiisa u socday ayaa wuxuu dhegaysanayay wararka isagoo dhoola caddaynaya. Wuxuu isagu u shaqeeyaa shirkad maaliyadeed oo weynin badan, taasoo caan ka ah magaaladiisa. Sidoo kale Locke waa shaqaale aad u firfircoon. Maalin kasta maamulihiisa ayaa ku ammaana howlkarnimada iyo daacadnimada shaqadiisa. Qadada ka hor, dhammaan shaqaalaha ayaa saf gala oo wada caba biyihii guduudna. Gacmahooda ayay laabta saareen oo si xushmad leh ayay u cabeen biyihii. Kadib fiidnimadii, marka qof walba uu gabagabaynayay shaqadiisa, haweeney argagaxsaneed ayaa si lama filaan ah kombiyuutarka Locke uga soo muuqatay. Haweeneydan waxay Locke uga digaysay inuusan cabin biyihii casaa, maadaama ay yihiin daroogo loo isticmaalo in lagu beddelo dareenka iyo maskaxda dadka, oo ayna dawladdu rabto in dadka sidii addoommada oo kale ay gacanta ugu hayso. Ka hor inta uusan muuqaalkeedu dhammaan, haweeneydii waxay sheegtay in qofkii doonaya inuu dunidan khiyaaliga ah ka soo tago ay caawinayso oo ay kaliya tahay inuu ayada soo raadiyo. Locke ayaa asxaabtiisa weydiiyey inay sidoo kale heleen fariintii uu helay, laakiin qofna ma aysan u jawaabin. Markaas wakhtigii shaqada ayaa dhammaaday, qof walbana waa uu baxay. Locke oo wareersan ayaa mar kale daaray muuqaalkii, laakiin markan isla haweeneydii ayaa noqotay mid si kale ah oo waxay xayeysiinaysaa biyihii guduudna. Isagoo shaashada eegaya oo yaaban ayaa calaamad digniin ah si lama filaan ah u soo muuqatay. Isla markiiba booskiisa ayaa gadaal uga imaaday oo joojiyey. Sida sharciga ah dunidan lama oggola shaqaynta wakhti dheeraad ah, oo waxaa markaas Locke lagu qasbay inuu iska baxo. Intuu guriga u sii socday, Locke ayaa si joogto ah uga fikirayay haweeneydii qariibka ahayd oo hadalkeedii ayuu raacay. Laakiin intuu tunnelka dhex marayay ayaa wuxuu arkay qaar ka mid ah booliiska oo lamaane la socda. Mid ka mid ah booliiska ayaa Locke u sheegay in tunnelka uu dhinacan ka xiran yahay oo uuna gadaal u laabto. Markaas booliiska ayaa lamaanahan siinayay biyihii casaa, waana uu ka soo tegay. Markuu guriga yimaaday kadib, Kim ayaa sidii caadad ahayd Locke u keentay koob biyihii casaa ah, laakiin markan ma uusan cabin oo wuxuu ku shubay sinkiga weji dhaqaa. Habeenkii Locke mar kale ayuu qarway, wuxuuna ku qarway isagoo meel mugdi oo dur cidla ah jooga ayna haweeney u yeerayso. Wuxuu soo kacay isagoo cabsanaya, dhiig ayaa ku yaalay go'yaashii sariirta. Muuqaalka derbiyaduna waa ay qaab darnaayeen. Intaas waxaa ka sii daran in gurigii quruxda badnaa uu dhab ahaantii yahay mid wasaq iyo qaabdaro badan. Isagoo argagaxsan, Locke ayaa xaaskiisa u tagay, laakiin waxaa la yaab leh in iyadu xitaa ay isbeddeshay. Kiimtii farxadda iyo soo jiidashada badneed ayaa noqotay mid xanaaq iyo qaylo badan. Waxay ninkeeda ku canaananaysay inuu hurdada ku daahay, waxayna u diyaarisay quraac aad u qaabdaran, taas oo uu Locke cuni kari waayey. Locke ayaa wax ka weydiiyey quraacdan qaabka daran, laakiin Kim oo aan dulqaad lahayn ayaa alaabtiisa bannaanka u dhigtay oona guriga ka burisay. Markuu jaranjarada hoose marayo, wuxuu arkay inantii cidda deriska, laakiin si ka duwan sidii hore, iyadoo dhab ahaantii waa mid af xun oo edab daran. Kabacdi wuxuu la kulmay tubiistihii, kaas oo si qalafsan ula hadlayay. Wuxuu ku wareersanaa dhaqmadan layaabka leh, wuxuuna la yaabay wax qaldan ee uu dadka ka sameeyey. Markuu goobtiisa shaqada gaaray,
wuxuu arkay asxaabtiisa oo xaalad xun ku wada sugan oona xafiiska oo dhan qashin ka wada dhigay. sidoo kale Locke booskiisa ayaa ku canaananayay inuu soo dahay. waxaa intaas dheer in odaygan uu ka shakiyey in Locke uusan cabin biyihii casaa. ka maamula shirkad ahaan isagu danka ma lahan faa'iidada iyo khasaaraha shirkadda. wuxuu keliya daneeyaa in shaqaalaha shirkaddu ay biyihii casaa cabayaan iyo in kale. labadooduba in muddo ah ayay murmayeen oo Locke ayaa meesha ka soo tegay isagoo aan cabin biyihii casaa sidii uu ku amrayba maamulaha. muuqaalka qaybtiisa xigta marka Locke uu isku diyaariyey inuu guriga aado, 2 askari ayaa isla markiiba soo eryaday. waxaa soo baxday in maamulaha uu booliiska Locke ugu yeeray isagoo ka walwalsan in la qabto. Locke ayaa cararay oo dhex galay dad saf ku jiray kuwaas oo isku diyaarinaya inay cabaan biyihii cajiibka ahaa. wuxuu isna soo qabsaday dhalo biyihii ah oo wuxuu iska dhigay sida inuu cabayo si aysan booliisku u dareemin. kadib markay booliisku tageen, Locke waxa uu wacay xaaskiisa, laakiin kama aysan qaban. balse markii dambe wuxuu imaaday gurigii oo dhowr jeer ayuu garaacay, laakiin mar kale lagama furin. isagoo caraysan ayaa wuxuu isticmaalay koodka emerjensiga albaabka lagu furo, waana uu galay. si kastaba ahaatee wax uu gudaha ku arkay ayaa ka yaabiyey. gurigiisii oo markii hore ahaa mid qurux iyo nadaafad badan ayaa hadda ah mid burbursan oo qashin meel walba yaala. markaas wuxuu maqlay dad qoslaya oo musqusha ku jira. isagoo hubinaya ayaa wuxuu ogaaday in ninkii tubistaha ahaa uu xaaskiisa musqusha kula jiro. Locke oo xanaaqsan ayaa mindi soo qaatay oo marar badan mindi ku tooriyeeyey tubistihii ilaa uu ka dhinto. balse isla markii uu dilka geystay ayuu wareeray oo ohin ayuu bilaabay. isagoo aan wax doorasho ah haysan ayuu soo qabsaday koobkii biyihii casaa ee ag yaalay oo biyihii oo dhanna ayuu qurquriyey. si layaab leh hal mar ayaa adduunkii ku hareeraysnaa oo dhan uu isbeddelay oo wax kasta oo mugdi iyo qaabdaro ahaa ayaa hadda caadi noqday. intii uu Locke dhalacdaynayay, albaabka musqusha ayaa furmay oo waxaa soo baxay xaaskiisii oo dhar xirneed iyo ninkii tubista ahaa. waxay keliya hagaajinayeen musqusha. sidoo kale Kim waa ay faraxsaneed. isla markii uu tubistaha baxay iyadoo faraxsan ayay ninkeeda isku duubtay. ugu dambayntii Locke ayaa reerayn galay. wax walbana waxay ula muuqdaan sidii riyo oo kale. balse markii uu xayeysiintii biyaha TV-ga ka arkay ayaa xanuun ba'an uu madaxiisa soo fuulay. Locke ayaa dib u soo xasuustay wax kasta oo maalintaas qabsaday. markuu soo fadhiistay, Kim oo walwalsaneed ayaa agtiisa la taagneed koob biyihii casaa ah. si kastaba ahaatee xataa markaan Locke oo wareersan ayaa koobkii gacanteeda ka tuuray, diidayna inuu cabo biyahaas. wuxuu kaloo ku qaylinayay xaaskiisa si ay u joojiso cabista biyahan, laakiin waxay u muuqtaa mid aan danaynayn warkaas. isagoo isku dayaya inuu xaaskiisa ku qanciyo inaysan cabin ayaa mar kale waxaa qabtay madax xanuunkii oo dhulka ayuu ku dhacay. ilbiriqsyo gudaheed, gurigii ayaa mar kale isku beddelay meel qaab daran. Locke wuxuu si xoog ah iskugu dayay inuu Kim ka joojiyo cabidda biyihii, laakiin iyadu waa ay dagaalamtay. waxayna wacday booliiska. waxay sidoo kale soo qabsatay mindi oo ay isku dayday inay isaga disho, laakiin nasiib wanaag Locke ayaa guriga ka baxsaday oo albaabka ku xiray Kim. isagoo aaminsan in taneelku uu yahay meesha keliya uu kula kulmi karo haweenaydii qariibka ahayd ee uu horay ula kulmay, ayuu halkaas aaday. intii uu sii socday ayuu ku dul dhacay dhowr qofood oo zaa'id u xanaaqsanaa. si lama filaan ah 2 nin oo booliis ah ayaa arkay oo isaga soo bursaday, laakiin Locke waxaa u suurta gashay inuu ka soo ordo oo uu koone ku dhunto. halkaas wuxuu ka arkayay bilayska oo nin soo jiidaya xoogna ku siinaya biyihii casaa. wuxuu Locke helay fariin uga timid haweenaydii qariibka ahayd. nasiib daro markaas waa la qaban rabaa, laakiin ka hor inta aysan qaban, Locke waa uu ka orday. intuu sii ordayey waxaa soo wacay xaaskiisa oo ka codsatay inuu ku soo laabto gurigiisa quruxda badan. laakiin Locke wuxuu og yahay in waxaas ay been iyo khiyaali yihiin, wuxuuna u sheegay inuusan dib u soo laaban doonin. kadib raggii booliiska iyagoo mar kale qaban rabaa ayuu taleefanka tuuray oo uu cararay. ilbiriqsiyo kadib, aakhirkii wuxuu ka soo baxay tanalkii, wuxuuna yimaaday isla keentii uu riyadiisa ku arkay, taasoo mugdi iyo qariib ahayd. Locke ayaa cabaar sii socday, laakiin ugu dambayntii dhulka ayuu ku dhacay sababtoo ah waa uu daalay. markuu soo toosay, isla haweenaydii qariibka ahayd ayaa u soo dhowaatay oo ugu hambaliyasay inuu ka soo baxay dunidii khiyaaliga ahayd. markaas waxay siisay koob biyo caadi ah oo ay ka dalbatay inuu cabo. markan waa markii ugu horraysay ee uu Locke arko biyo caadi ah, laakiin waa uu ka labalabaynayay inuu cabayo iyo in kale. filimka ayaa ku dhammaanaya Locke oo koobkii gacanta ku haya, si layaab lehna u eegaya indhaha haweenaydii. subscribe saar kanalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kanoo kale ah. furo gambaleelka oo noo reeb like si aad u caawiso kanalka. waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.